بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دhowaada barnaamijkii kormeerka wararka iyo kaftanka waad si wada jir ah uga daawanaysan channelada kala ah Kismaayo Kaybal iyo Qarri Jiqod waxaana si wada jir ah idin kusoo jeedinaya anigoo Cabdiraxmaan Maxamed iyo saaxiibkay Barraa'il Kacse qodobada aad galabta ku daawan doontaan waxaa kamid ah Kenya iyo Soomaaliya oo ku heshiiyay laba qodob oo muhiim ah talo maxay noqon doonaan Puntland oo xirxirtay xafiisyo ay wasiirada heer federaal ka furteen maamulka Puntland iyo waliba senator arintaasi ka hor yimid oo Puntland ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya oo hub iyo sahnad military geysay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug hay'adda lacagta adduunka IMF oo sheegtay inay taageersan tahay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya iyo dawladda federaalka oo wada qorshe ay ku bedelayso ciidamadii AMISOM ahaa kuna keenayso ciidamo Turki iyo Eritrean ah qodobadaas iyo meelaha kale ay lana marmarto ayaan daawadayaal iyagoo faahfaahsan idin soo gudbinaynaa haatan u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan qodobka koobaad haddii aan ku horeyno dawladda federaalka ah Kenya iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku heshiiyeen laba qodob oo muhiim ah aad ma santahay Cabdiraxmaan Fakadhow haddii aan qodobkaasi daawadayaasha faahfaahintiisa ugu galno wasiirada maaliyadda ee dawladaha Soomaaliya iyo Kenya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda dalka Kenya Ukuria Tani ayaa waxay ku kulmeen dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka iyagu toos u Soomaali karaan meelaha iska halaloodaan weeyaan labaduba aad iyo aad xaq ku kulmeen waxayna ka qayb galayeen shirkii hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka kulankaasi marka ayaa labadan wasiir maaliyadda Kenya iyo Soomaaliya waxay qabteen shir jaraa'id bay wada qabteen shirkaasi waxay uga wada hadleen laba arrimood oo muhiim ah in oo labada wasiir ay ka wada hadleen labadaas arrimood ayaa ah arrimaha gargaarka iyo ganacsiga oo ay sheegeen inaysan saameyn ku yeelanin kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ganacsiga Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeya iyo gargaarka ayaan saameyn ku yeelan kiiskii badda aad iyo aad waxay labada wasiirba sheegeen in arrimaha gargaarka iyo ganacsiga aysan wax saameyn ku yeelanin muranka kiiska badda ee Soomaaliya Kenya u dhaxeeya okay ganacsiga waxa soo hoosgalaya duulimaadka diyaaradaha iyo alaabihii la isku dhoofinayay ee cargo-ga ahaa oo aan ogeyn in Kenya joojisay duulimaadka diyaaradaha tooska ahaa oo laga dhigay bitransit wajeer ku noqonaya howlahaas ma ku jiraan dabcan diyaaradaha iyo hawlahaas ma aysan ka hadin laakiin si guud ganacsiga iyo arrimaha gargaarka ayaa u taabteen inaysan wax saameyn ku yeelanin waxyaabaha muranka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxeeya labada wasiir ganacsi aad iyo aad sidoo kale waxay hoos ka xariiqeen in ay muhiim tahay wada noolaanshaha labada bulsho iyo in aysan khilaafyada labada dawladood u dhaxeeya aysan wax saameyn arintaas ku yeelanin marka labada wasiir oo ku kulmay magaalada Washington arrimahaasi iyo labadaasi qodob ee muhiimka ayana ka wada hadleen shir jaraa'id ayana wada qabteen aad iyo aad baad u mahadsantahay Barrow qodobka labaad haddii aynu ku sii siqno barnaamijka kormeerka iyo kaftanka Puntland waxay joojisay xafiisyo laga furanayay isla maamulkeeda senator baa dhaliilay oo ka hor yimid joojintaas xafiisku muxuu yahay senatorku muxuu yahay aad u mahadsan Cabdiraxmaan Fakadhow haddii aan daawadayaasha xasuusino shalay waxaan ka hadalnay qodob ahaa in wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan uu xafiis ka furay Puntland gaar ahaan deegaanka Dhahar waana halka deegaan doorashadiisa laga soo doorto Puntland baa marka arintaasi maadaama khilaaf ka dhaxeeyo dawladda federaalka si aad uga jawaabtay amarro culusna soo saartay Puntland waraaqay shalay soo saartay waxay ku sheegtay in dhammaan balaxay wixii xafiisaha ay dawladda federaalka wasiiradeeda ka furteen maamulka Puntland ayna jirin wax xafiisaha oo kale oo cusub oo maamulka Puntland laga furi karo sidoo kale xisbiyo mucaaradaha ama xisbiyo heer federaal ah oo dawladda taageersan inaysan wax shirada ku qabsan karin maamulka Puntland arintaasi Puntland waxay uga gal lahayd dabcan shalay sidii aan sheegnay xafiiskii wasiirka qorsheynta uu ka furay maamulka Puntland oo ah halka uu ka soo galay warqad bay ku soo dul saartay wareegta waraaq bay soo saartay amaradaasi culus ay soo saartay oo inaysan xafiis la furi karin wixii hadda furanna la xirayo okay senatorka ka hor yimid arintaas waxaan ognahay Puntland iyo dawladda federaalka in uu khilaafaad u dhaxeeyo oo inkastoo tan Jubbaland oo kale aysan hayn laakiin khilaaf uu u dhaxeeyo tan Jubbaland doorashada ayuu ka dhashay tan Puntland dabcan arrimo ay isku hayaan federaalka iyo maamulka Puntland marka senator ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare oo ka soo jeeda Puntland oo lagu magacaabo Maxamuud Axmed Mashruuc iyo arintaasi ka hor yimid oo sheegay in ay yihiin arrimo aan waafaqsanayn kan hor imanaya dastuurka dalka u yaala marka uu ka hor yimaaday amarkii maamulka Puntland ka soo baxay ahaa in lagu xiro xafiisyada ay wasiirada ka tirsan federaalka ka furteen
maamulka Puntland deegaana kamid ahaa ama la doonayo wixii hadda ka dambeeya in laga furto dabcan dabcan Puntland waxay waswaas ka qabtaa maadaama khilaaf inay faragelin iyo dhexdeedii caloosheeda wax laga bilaabo aad iyo aad waa uun ka hor imaad laakiin saameyn kuma yeelan karaan filayaa amarka maamul goboleedka ujeedka dee unbay laga leeyahay baa wax kasta ugu muhiimsan okay Puntland dabcan waxay u aragtay in ujeedka uu yahay in iyada la rabo in lagu carqaladeeyo okay qodobka saddexaad haddaan kusii suqno dowladda federaalka Soomaaliya waxay hub iyo saanad military oo culus geysay galmudug dantay ka leedahay maxay sabab geysanadaasi aad baa mahadsantahay Cabdiraxmaan Fakadho haddii aan qodobkaasi faahfaahsan daawadayaasha la wadaagno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saanad iyo hub iyo saanad military waxa ay geysay maamulka Puntland gaar ahaan magaalada dekada loo sameeyay hadda Hobyo weyn mar dhaxaas ah in uu shir balaaran ka dhacay oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta ganacsatada iyo wali waxqaradka beesha habargidir galmudug degta wararku waxay tilmaamayaan in doomo dheereeyo hubkan laga qaaday magaalada Muqdisho kadibna la gaarsiiyay magaalada Hobyo magaalada dekada hadda loo sameeyay ku taala badda qarkeeda dawladda ayaa waxa la yiri hubkan waxay u waday ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybtooda 12aad ee ku sugan galmudug waxaana la sheegayaa in dawladda halkaas ay ka bilaabayso hawlgal ay doonayso inay ku baacsato ururka al-shabaab oo deegaanadaasi dagaal ka sameeya marka hubkaasi sidaas weeye daawadayaashana waxaan u sheegaynaa hubkaasi dawladda in ay halkaasi gaarsay oo doomo dheer ay lagu gaarsiiyay dawladduna sida hadda warbixintan ku helnay ujeedku uu yahay in amniga lagu sugo oo ciidamada halkaasi ku sugan xoogga dalka hubkaasi la gaarsiiyo laguna la dagaalamo ururada ka soo horjeeda dawladda gaar ahaan dabcan sida warbixinta lagu sheegay ururka al-shabaab laakiin waa inuu noqon mid lagu la dagaalamayo isla maamulka gudihiisa iyo burburintiisa dabcan waxaan filayaa inaysan taasi dhacayna bay la tahay hubkaasina sidaasi baa loo geeyay sida warbixinta aan ku helnay okay IMF waxay taageertay deyn cafinta Cabdiraxmaan waa maasan tahay dabcan waxaan ogeyn in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ay maalmahan ku sugnaayeen magaalada Washington ee dalka Mareykanka halkaas ay uga qayb galayeen shir halkaasi ka dhacayay kaasi ay soo qaban qaabisay dawladda Britain oo ay lahaayeen Soomaaliya loo qabtay barnaamijka deyn cafinta iyo wixii uga soo galay qorshahaasi dawlado fara badan oo ay ka qayb galeen bangiga adduunka iyo hay'adda IMF oo ah kuwa deyn cafinta ugu muhiimsan ama doorka ugu muhiimsan ka ciyaaraya iyo halkaasi kulankaasi qayb libaax ka qaatay ra'iisul wasaaraha khudbad dheer buu ka jeediyay halkaasi oo ku saabsanayd dadaalada dawladda federaalka ay wado qorshaha deyn cafinta hay'adda IMF ayaa waxa ay sheegtay inay taageersan tahay qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado ee ku aadan in deyn cafinta iyo sidii ay qorshahaasi uga soo bixi lahayd marka hay'adda IMF ay hadda boogaaday si dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya ay wado maadaama ra'iisul wasaaraha iyo haweeneyda agaasimaha ka hay'adda IMF ay ku kulmeen magaalada Washington aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wax kastoo horumar ah iyo deyn cafintaba deyntu runtii waa culus tahay dabcan Soomaaliya markaan fiirino tan iyo burburkii deymo fara badan baa lagu leeyahay oo burburkii kadib dawlad xoog badan oo dalka wada haatay shilin ruuxiisa yaabo uu qoranayo un miya waxaan deeq baan moodayay wixii deynahaba waa la qoranay marka deyn aad fara badan baa lagu leeyahay waxaana lagu wadaa sanadka 2021 bisha Febraayo in ay ku dhawaaqaan barnaamij guud ahaan looga cafinayo Soomaaliya deymihii lagu lahaa bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF aad iyo aad ilaa wixii cunay hadda ma garanayna dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ay ciidamada Amisom ku saarayso Eritrea iyo Turkiga lagu bedelay aad iyo qorshahaasi sidoo yahay waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan qorshahaasi qaabka ku hirgali kara iyo ciidamo shisheeye oo wadanka ka baxaya ama ka tagaya iyo kuwa kale oo la keenay wax kala duwan yihiin laakiin sidaas dabcan way ka duwan tahay arintani dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada leeyahay qorshe ay doonayso in ciidamada Amisom markay dalka ka baxaan sanadka 2021 kuwa Eritrean iyo kuwa Turkish ay yimaadaan dalka ciidanka Amisom oo ognahay qaybtiisa ugu horeysay Uganda ahayd inay yimaadaan sanadkii 2007 yaa
waxaa lagu wadaa in si tartiiba in Soomaaliya ay uga baxaan sanadka 2021-kana ay gabi ahaanba Soomaaliya ay ka baxaan intaas ka horna ay tababar iyo wixii maaragtay xirfadaha siiyaan ciidanka dawladda Soomaaliya marka ciidamadan Eritrea iyo kuwa Turkiga ka imaanaya lama shaacinin in ay yihiin ciidan caadi ah oo dagaalami doona laakiin waxa la sheegay in ay yihiin ciidan tababari doona ama tababar u fidin doona ciidanka dawladda Soomaaliya si markaasi waxyaabihii ka dhinaa ee AMISOM ay uga tageen loo kabo looguna dhameystiro kadibna ay dalka guud ahaanba ciidanka dawladda Soomaaliya ay ula wareegaan marka ciidanka Eritrea iyo Turkiga ee la keenayo dabcan waa kuwa tababar xoojin ah u sameyn doona ciidanka dawladda Soomaaliya si ciidanka dawladda Soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in guud ahaanba dalka Soomaaliya amaankiisa iyo nabadgelyadiisa ay hantaan lana wareegaan laakiin sida hadda warbixinta lagu sheegay in kastoo wax isbedeli karo ma ahan ciidan caadi ah oo qaabkan hadda kuwan ay u dagaalamayaan ciidan caadi ah oo boqolaal dabcan uu gaari karaa laakiin ciidan caadi ah kumanaan gaaraya oo dagaalamaya oo nabadgelyada sugaya maaha laakiin waa ciidan ka caawin doona ciidanka Soomaaliya sidii ay amaanka ula wareegi lahaayeen iyo dhanka tababarada dabcan waa tababarayaal iyo macallimiin baa imaanay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Barrow guud ahaan waxaanu inta ku saafmeeraynaa barnaamijkeena kormeerka wararka iyo kaftanka oo maantanimadan aanu si wada jir idinku soo jeedinayna anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo saaxiibkay Barayl Kacse tan iyo inta barnaamijkan oo kale isugu soo noqon doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo